أرضيا يقونتو واسيدي إليس واسيدا رورتيو أختو وبركي إرماوي كليه أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا عدي الله معلمكينا كال magacayga waa Cali Abubakar Axmed Ustaad Kiimiko ayaa ku magac dheerahay taariikhda ku waxbarasho waxay ka bilaabanaysaa dugsigii hoose dhexe ee sare waxaan ku soo qaatay school leeraado schoolka Umar bin Khadaab Primary and Secondary School ku yaal magaalada Beledweyne ee caasimadda Iran kadib jaamacadeedii waxaan ka qaatay laba batch waxaan ka sameeyay jaamacadda Horseed International University باجك لبات وكلية وحبرشة أها وحن كسمة جامعة Somali University UNISO إمين كان هذا قبل إمريا ماستر ديجري وعن كسمة جامعة ومدة جارهان كليتها وحبرشة قيبت Education و Leadership Management أو معمولك يوجامين وحبرشة سيقول تاريخ دي وحبرشة وأنتاس waxay ku dhalatay inaan macallin noqdo oo arday Soomaaliyeed aan wax baro aniga ku jira xilligii dugsiga sare ayaa igu dhalatay inaan noqdo macallin gaar ahaan maadooyinka sayniska xilligaas igu dhalatay waxaan igu dheelay waxay ahayd macallimiintii waaga wax ii dhigaysay oo runtii ahaa macallimiin sameeyay nafurid gaar ahaan macallinkii inoo dhigay biology chemistry oo kale macallinka Carabiga inoo dhigay jiray Ustaad Axmed عبد الرحمن خير الله سيو معلمين تاس أنا مركز كشيء على القاعدة يا قابك إحنا بريين يا وحيقول الله تمرك أنا نقول مثال كذا نأخذه وأن معلم نأخذه مركز سلاسة يقول الله تي مركز أنا معلم نأخذه وحيبها كده بيني كم دهيت معلم هذا هيك قد وأنت شقويك كلامك على فيرشو أرتوا مع الشقاء وشقدي النبيذا dadka dacwo la gaarsiiyo ma ahan dadka in la barayo maadi kaliya marka qofku macallin yahay bulshada wuxuu barayaa waxyaabaha wanaaga asaasiyaadka ah iimaaniyaadka ku jiraan aqaaidii ka mid tahay waana shaqadii nabiyada oo qofku inuu wax dadka faro wanaaga xumaanta uu ka reebo sababtu waxay tahay macallinku wuxuu la tacaamulayaa nooc kasta ee bulshadii ayuu la tacaamulayaa galaaska salahan waxa dhigata 30 arday 30 kaas arday waxay ka soo baxeen 30 guri marka macallinka waxa leenahay marka wuxuu la tacaamulayaa bulshadii oo idil waa qofka kaliya marka laga wareysan karo waxa ay bulshadu tahay shaqooyinka caadiga marka waxay macallimadu kaga duwan tahay waxa waaye waa shaqooyin si joogto ah loo qabanayo وحتى قفكي مركو كسو تغو غوبي waxbarasho ama noqdo jaacad ama noqdo iskuule qofkii wax u soo raacaysa guriga waxa laga marka macalinkan asoo guriga joogo inuu ka fikirayo wixii Britol uu qaban lahaa oo qaabkii ardayda ula tacaamuli lahaa cashirkii Britol uu bixin lahaa waana shaqo runtii cycle wareega salahan cashirka sanadka hore adigtay laga yaabo inaad wadana Britol adigayso haddana waxa laga rabaa cashirkaas inaan ku laabato yara eegto waxayna kaga duwan tahay waxyaabaha kamid ah shaqooyinka waxa laga yaabaa dukaanku markuu qof gaday dukaanku inuu soo xiro qof isaga soo tago waxa laga yaabaa qofku markuu xafiisda ka shaqeeyo xafiiska inuu soo xiro isaga soo tago laakiin macallinku shaqadan macallimada waa shaqo runtii u baahan adeeg oo runtii qof kasta oo bulshada kamid ah ma noqon karo macallin waxay kaga duwan tahay waxyaabaha kamid ah waxa waaye qof adeeg leh oo karti leh baa shaqada macalinka gali kara waxay ugu duwan tahay kale shaqooyinka caadi waxa kamid ah waa shaqo runtii marar qaarkood macalinka uu helayo fasax salahan laba bilo fasax jiro oo macalinka uu nasiino uu galay laakiin shaqooyinka waxa laga yaabaa in nasiino aan loo aadin salahan qofka dukaan gaday waxa laga yaabaa dukaankaas markasta inuu furnaado laga rabaa marka xilli gaar laga reebo وهبيندي وكلا تكان كشقينين وكلا مركا وشقة وباهن إن ما تدان دبقل قفك وكجرو أو واحد تحليلس وكجرو أو معلك إنه واحد تطبيقيه
wax inuu curiyo wax inuu soo abuuro ka rabta wey marka wayna ka dhib badan tahay marka loo fiiriyo shaqooyinka caadiga loo qabanayo waxay u baahan tahay marka in lagu dhabar adeego marka taasi kaga duwan tahay shaqooyinka kale caadiga loo qabanayo shaqadan macalinimada macalinka wanaagsan waxyaabaha looga rabo way badan yihiin baxthi la sameeyay tilmaamayaan ko macalinka inuu ahaado qof marba diyaar waxa uu dhigayo inay noqdaan wax oo galaaska markuu imaado uusan ardayda ku diyaarinin uu galaaska banaankiis inuu ku soo diyaariyo waxyaabaha macalinka wanaagsan looga baahay waxa kamid ah macalinka inuu leeyahay naxariis macalin u damqanaya ardayda ardayga liita la fariisanaya ardayda xogtooda raadinaya ee ardayda wareysanaya maadaama uu dhahnay macalinka wuxuu la tacaamulaya nooc kasta oo bulshadu ay tahay macalinka inuu leeyahay dareen waalidnimo oo ardayda inuu macalinku dareemo maadaama uu yahay mathalkii nabiga ama booskii nabiyada uu taagan yahay waxa laga rabaa macalinka marka inuu ardaydu dareemo arday sidii ahaa shalay ama sanad hore macalinka hadii isbedel ardaygaas uu ku arko waxa rabaa inuu macalinkan ardaygan uu dareemo macalinka waxyaabaha laga rabo waxaa kamid ah inuu ishormariyo oo cashirkii ama aqoontiisii waxaa la rabaa macalinka inuu update gareeyo oo isagoo ku dabaqaya noloshan casriga ee maanta teknolojiyadda macalinka inuu la socdo waxyaabaha macalinka wanaagsan looga baahan waxaa kamid ah macalinka inuu noqdo macalin waaqici ah macalin waaqici waxaan kala jeednaa zamanka macalinka uu nool yahay inuu la jaan qaado salaana hadda casrigan ama waqtigan aan joogno waa casriga teknolojiyadda macalinka waa inuu technology adeegsan karo galaaska ku dhex adeegsan karo macalinka waa inuu ardayda ku sameyn karo hal abuuris oo macalinka waa inuu leeyahay creativity hal abuurnimo waxyaabaha macalinka wanaagsan looga rabo waxaa kamid ah ama looga baahan yahay macalinka shaqada ku jiro inay ka tahay wax la yiraahdo rabitaan asaga ka soo go'da aysan ahayn wax oo maalmo shaqada ku dangaaro waxyaabaha macalinka wanaagsan laga rabo ama sifaadka lagu garan karo waxaa kamid ah macalinka inuu leeyahay wax la yiraahdo aragti fog oo ah sidii bulshadan Soomaaliyeed loo horumarin lahaa macalinka waxyaabaha wanaagsan laga rabo waxaa kamid ah inuu macalinka socialism yahay oo ardayda uu ka dhigi karo arday bulshaawi ah arday bulshaawi waxaan ka wadaa oo la jeeda waxaa kamid ah waxa ula jeedaa macalinka inuu ardaydu ka soo qaadi karo meesha ay joogaan oo bulshadii dhaqanka ay leeyihiin akhlaaqiyadkii inuu macalinka ardaygu ka bedeli karo oo akhlaaqda wanaagsaneed islaamkii dhaqankii Soomaaliyeed inuu macalinka ardayda ku tadbiiqin karo waxyaabahaas ayaa looga baahan yahay qofka macalinka wanaagsan ليه سؤال شنو وحنا قلنا سوا سؤال آد وبلارن علمية الصومالية سجارة ما كانوا قاعد لنا وهي كل شقيان وظروفه ظروفها وأدق معلمية كل شقيان وحكم ده معلنك أو هلين فصحيو ديرية شقوين كل جايب إن تهاي شقوين حدافة إلى مركا مبادئ الشقة وحكم ده أما حجم إن اللي يرادو flexibility صراحة معني كان صراحة ساكي أما أسبوع عن قلية صدني شرح حسه قلبة صدني شرح حسه أما صدني حسه صباحة ومعني كمركا إن وقتها أيضا مركا وحي لقادني مشارك ويري هاي أيها حدنا وحد عيسى مركا معني كإنه لكلمه تايم كوشقينا إنه نقطة تايم أما وقتيات ودير وظروف تقول أدق إيه معلوماتي لكل ميان وحيابها معلوماته بهنا لا يحكم إذا مركا ظروفها لو جدبه إن وقت في عن إهران معلمينته ومعلنكو صالحانو كلا حيسدها laga yareeyo maadooyinka uu dhigay ay yaraadaan maado yar ay noqoto si loo helo macalin macnaha raba inuu macallimada ku sii jiro waxyaaba keenay marka macallimiinta in laga insaxaabo macallimada waxa sabab waxa kamid ah shaqada macallimada ama duruufti macallimada lagu shaqeynay oo duruuf aad u adag ah ay kamid tahay mushaarka iyo yar oo lacagti macalinku qaadanayo aad u yar oo aan u qalmin wixii macalinka laga rabay macalinka uu rabay iyo waqtigii ama fasaxyadii oo salaan fasaxi labada bilood fasax waa waqti dheer sanadkii baa laga yaabaa laba bilood marka in fasaxay uu helo in xiisado faraha badan macallimiinta laga yareeyo waxyaabahaas duruuf oo ku badan xiisadaha ku badan
ayaa ka mid ah duruufaha aadka u weyn ee macallimiinta haysto waxyaabaha kale oo macallimiinta duruufaha ka mid ah caymis la'aan ayaa jirta oo macallimiintu ma lahan wax la yiraahdo caymis ma haystaan waxyaabaha macallimiintu duruufaha wajahayaan waxaa ka mid ah macallinkii salahaan qoys uu leeyahay in qoyska macallinka ay helaan salahaan waxbarashada ay u noqoto free meelaha qaar xagga macallinkii meesha ka shaqeynaya oo naftiisii la taagan haddana ilmihiisii baa lacag laga qaadaya marka waxay ka mid tahay duruufaha iskuulada qaar ama iskuulada badankood macallimiinta kula dhaqmaan taasna waxay wax laga roonaa ileen macallinkii asagii ayaa taagan oo 24 saac iskuulkan aqligiisii aqoontiisii iyo xooggiisii gelinay marka in xogaa xagga culisaadkaas ayaa macallimiinta ugu badan duruufaha macallimiinta haysto loo qaban karaa horta waa in la helo wasaaradda waxbarashada oo kale inay qorshe fiican ka dejiso una dejiso macallimiinta waliba ay ka sarmariso shaqaalaha caadiga ee dawladda shaqeeya in ay macallimiintu ka mushaar fiicnaadaan kana siina fiicnaadaan waxaa laga yaabaa qof ayaa wuxuu ka shaqeynaya xafiis waxaa laga yaabaa saakin 2 saac inuu soo galo 4 6 saac ama 8 saac u baxo shaqada uu shaqeynaya waxaa laga yaabaa haddii celcelis maanta inuu 1 saac shaqeynaya lacagta macallinka uu qaatana laba jibaarkeeda uu qofkan u qaadanayo marka si duruufaha looga gudbo macallimiinta ugu gudbaan kuwa in community ama bulshadii wacyigelin guud lagu sameeyo oo macallinka ay u noqdo manzilka koowaad ama qof aan laga taaban karin qad cas waa inuu macallinka u taagnaado sidoo kale wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada inay ka fikiraan duruufaha macallimiinta ku xeeran sidii loogu gudbi lahaa u heli lahay macallimiinta caymis dhinac walba leh maadaama aanay lacagihii iyo mushaaraadka ay qaadanaan oo runtii aan ku filnayn oo aanan kaafinaynin sidoo kale in ururo waxbarasho la sameeyo sida hadda ururka macallimiinta oo kale jiro kale ururadaas ay noqdaan ururo u dooda xuquuqda macallinka tusaalahaan waxaa arkaysaa macallin ayaa dhib soo gaaray tusaalahaan kale ayaa waxaa jirta macallin la dilay meel hadda macallinkii arrintiisii loo dhigay hadda ma jirto marka waa in la hela marka ururo u dooda xuquuqda macallinka la dulmiyay iskuulla qaar waxaa arkaysaa bilaha fasax oo kale macallimiintii xuquuqda ay lahaayeen la leeyahay macallin waa fasaxan tahay mushaarkii macallinkii 2 bilood meesha ka maqan yahay marka wadanka garsoorka wadankana inuu naftirkiisa uu yeesho qayb runtii macallimiinta xuquuqdooda ilaalisa oo macallinkii xuquuqdiisa lagu tuntay in yar oo kamid ah 1 senti lagu tuntay meel uu macallinku u dacwoon karo qofkii ciladaas ama dulmiga macallinka kula dhaqmayna ilaa maxkamad lala gaari karo ayadoo shuruudo kale aan loo fiirinaynin oo shuruudo aan la hordhigaynin ay ku fiican tahay waa haddii waxbarashada dan laga leeyahay macna haddii waxbarashadii dan laga leeyahay ilaan waxbarashadu waxaa qiimo u yeela oo macallinka qof qanacsan ayaa wuxuu soo saari karaa marka bulsho dhisan bulsho aqli bulsho fiyow marka intaasaan oran karaa macallimiinta sidii hore ma aha waayii hore laga yaabaa inay jireen in macallimiintu kadib burburkii 9-meeyadii in yaa wax dhigi karo waa laga soo gudbay hadda waad arkaysaa wasaaradda waxbarashada ayaa 2 jeer oo 2024 2023 waxay qaadatay macallimiintaas oo marayay 6,000 ku dhawaa marayay tababaro ay wasaaradda waxbarashadu siinaysay kormeeraba iskuuladii qaar lagu sameeyaa iskuuladii naftirkooda sidii hore maan wacyi waa baraarugay macallimiintii sidii hore ma ahano markii waxbarashadii hadda wasaaraddu keentay barnaamijkan macallimiinta ay wasaaraddu shaqaalaysiin wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare in macallimiintii ay ku dadaalayaan inay digrii raadiyaan oo xirfadoodii sare u qaadaan inay tababaro galaan hadda sidii hore waa laga soo gudbay oo wadanka waxaad arkaysaa oo kale maanta in baahidii waxbarashada aad loo fahmay oo dad waxaa wadanka mid master education sameynaya ama PhD education kasoo diyaar waagii hore ma la helaynin marka hadda fursadihiaas oo xagga tababarid xumada ah I think waxaan filayaa in hoose u dhacday oo macallimiinta inta badan hadda ay yihiin aad u tababarayeen walow la heli kara qaybo kamid oo aan tababarnayn waxaan u baahan tahay in research iyo baxth la sameeyo kormeer la sameeyo xog aruurin la sameeyo lana barbar dhigo macallimiinta tababaran iyo kuwa aan tababarnayn intaas ayaa runtii muhiim ahaan lahayd waliba dad ehel ah ooshaas marka la sameynayo qiimeyntaas ama cilmi baaristaas loo diro si research
ama natiijo saxa loo soo saaro oo la yiraahdo Soomaaliya waxaa ka shaqeysa intaas oo macallin intaasna way tababaran yihiin intaana ma tababarna marka hadda waxa isleeyahay xooga macallimiinta waa qolo waa macallimiin tababaran ciladahaas way jiraan wayna jiri jireen haddaan la xalina way jiri doonaan marka waxaa radaa carabtu waxay tiraahdaa faaqidu shay laa yucdiihi oo la yiraahdo laba qaawan isma qaado macallin marka aan tababarnayn waxa uu ardayda u dhigay aanan aqoonin waxa uu soo saaray waa dareemi karnaa marka si taa loo helo koow waa marka la joogo xagga shaqaalaysiinta in lagu dadaalo macallin waxa uu dhigayo yaqaana sida loo dhigayo yaqaana in marka hore la shaqaalaysiiyo waxyaabaha hadda iskuulada qaarkood waxaa laga yaabaa inay macallinka ku qaataan lacag yari salahan maadadan chemistry oo kale ah iskuulka ka banaan macallin faarax oo maadadii khabiir ah haddii uu ka shaqeeyo meeshan oo shaqadan qabto tusaale ahaan wuxuu u baahanayaa inuu ku shaqeeyo lacag $500 laakiin macallin cali oo maadadii xoogaha yara yaqaana laakiin yaro bilaabeen aan mo talent ama maadadii aan active ku ahayn wuxuu ku shaqeynayaa 250 ama 200 marka maamulo wuxuu qaadanaya marka macallinka lacagta yar asagoo ka fiiriya marka income-ki iyo facility schoolki taas waxaa ku dhamay marka tayadii waxbarashadii waxaa la soo saaraya marka arday waxa loo dhigay aanan aqoonin arday wata 100 dhibcood maadadii chemistry tusaale ama carabiga ama xisaabtii haddana haddii waxba laga weydiiyo oo la yiraahdo chemistry maxaa waay muxuu taraa xisaab maxay qabataa aan ka jawaabi karin taas waxaa loogu badbaadi karaa marka qaybtan HRM-ka oo qaybta shaqaalaysiinta iskuulka ama jaamacadda inay ku dadaasho qofka ay qaadanayaan right position right person in the right position qofkii saxda ahaa iyo booska saxda in isku qaato lacagta ha badnaata deerto inta marka waa meesha in la iska waafajiyo haddaan taa la iska waafajinin waxa hadda ardaydeenu haysatay ka mid tahay waddanka waxaa arkaysaa 37 secondary ka baxaysa haddana aawe tayo ma leh ardayda aawe jaamacadda haddii la tago macallimiintu way qiina xilin ilmihii waa eber waxaa keenay waxa waaye marka horeba lama qaadanin qofkii saxda ahaa iyo booska saxda ah si loogu badbaado marka tusaale waa in wasaaradda waxbarashadu samayso kormeer guud waddanka ka samayso tabarna u heli kartaa marka wasaaradda ama hay'adda awood u leedahay macallin kasta waxa uu dhigaya ma yahay qualification ma ka haystaa takhasus ma ka haystaa tababar ma haystaa waxa la qiimeynayo waa methodolojiyada qaabka wax u dhigaya qofka iyo waxa uu dhigay subject matter-ka inuu yaqaan haddaan labadaa la heli meesha waxa lagu hayaa waa been marka si marka taa loo sameeyo waa in bahda waxbarashada si guud ay ku dadaalaan waalidiinta naftirkooda community-gii oo lacagta bixinaya oo ilmihii lacagta laga qaaday waa inay baaraan iskuulladu waxay leeyihiin guddi waalid waa inay baaraan ardaygan ama ardaydan maadada ka cabaadaysa ama dhib ku haya ama maadadii ku dhacaya waa in la baaro maxaa ka dambeeya waati ilaahay quraanka lagu aateenaa min kulli shay sababan thumma atba'a as-sabab sababta in la raadi sababta marka waa inuu ardaygu leeyahay waa inuu macallinku leeyahay waa inuu maamulku leeyahay marka cid le marka si loo baaro awal kulli shay waa in macallinka saxda ahaa maadada loo dhiibo wilina macallinka maadadii tababar lagu siiyo waa taqaanaa qof marka shirkad shaqaale qaadato isla markii hore lagama shaqaalaysiiyo marka hore train iyo tababar la soo siinay macallinka marka waa in tababar la siiyo maadada uu dhigay inuu yaqaan in la hubiyo marka la hubiyo inuu yaqaano wadiiqadii ama kayfiyadii ama habkii uu dhigi lahaa methodolojiyadina waa in macallinka lagu tababaro marka waa waxay kaga duwan tahay macallimadu de wax shaqooyinka kale qofkan waxa la rabaa inuu aqliyad dad inuu la falgalo uu soo saaro marka dadku uu soo saarayo marka waa inuu ku soo saaro wax sax ah oo inuu soo saaro wax sax ah tusaale haddaan hadda meeshaas aan mithaal yar ka bixiyo macallin waxa la jira hadda ka hor arday wuxuu dhigi jiray maadada sayniska علوم كبحجرتي عربي مركا حيوانات كحلو قيبيا كوالف دبر له يكوالف دبر لهين مركا عربي حاول مركا فقاريات يلا فقاريات معنا مركا أردت تساوي شرحي أيام معنا كسوق كتري معنا كلام هذا قبتي مركو كتري مكاسو ده فقاريات وحال ذا وحيوان ذا سنتله سيد بالآدم كوكل مركز أردت ويكون بوغي مركا بوغ أردت حول اللي مركا labada macallin baar u sheegay soo labada isma saxna marka dadkan waa wixii u hormara macallinkii uu horeeyay wuxuu ku fasiray in macallin waxaan laf dhabar leeyahay in aan laf dhabar lahayn marka qofka duusan wixii uu gudbinay uusan aqoonin ugu yaraan maalin bay ka daba imaan doontaa
marka waa macallimiintu waa inay ku baraarugaan macallin walba waxaad dhigayso waa inaad aqoonteeda leedahay khibradeedu leedahay wadiiqadii ama methodology ama habkii loo dhigay waa inuu macallinku leeyahay inta haddii la isla fahmo waxaa soo bixi kara arday active ah birtoola wadankan bulshadii wax u qaban kara run ahaantii wax hadda dhibaato oo sidaas ah waxaan ka xusi karaa labo midna waa waagaa dugsi sare aan dhiganayo dugsiga iskuulka aan dhigan jiray anigu dugsi dhexe ah waxaan xasuustaa anagoo imtixaan ku jirnay waagii 2006 aan u malaynayo xilligii Itoobiyaanka wadanka soo galayeen maalin axada waxaan xasuustaa anagoo imtixaan u fadhina magaaladii aan joognay qayb ka mid ah ee diyaarad duqeynayeen marka xaafadiina waa laga qaxaya marka ardaygii oo waxbarasho jira gurigiina laga sii qaxo oo dagaal ha dhaco waa waxa aan xasuusto runtii ay ka mid tahay dhibaatooyinkii aan saas aan la kulmay waa aragtay midda kale labaad waa magaalada Muqdisho oo hadda aan qofkii socodka uu ku yar yahay waxaan xasuustaa anigoo imtixaan leh waxaan ku galay maaliga xasuusta jaacada qaybtan hadda aan joogno iskuiskan dalcad Cabdiqaasim marka meel waxaan ka imaanay xamarooyin xagga magaalada way xirnay dadka waxaan malayna waa doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka waagii farmaajo oo jawaari la dooranay inay ahayd magaalada dhan way xirnay imtixaanna waa leena marka safarkaas dheer oo magaalada aan soo galay waa u soo lugeeyay ayaa caqabadii aan la kulmay aan isleeyahay way ugu badnaayeen wax caqabad kale oo hadda aan xasuusto aan la kulmay ma jirin والله سؤال شان ويلك ما فكر لكن واحد أحسن لي لهاي دون وأنقنع سنة نقول لها دانو في اللي واحد برشان سوق الليلين وحاق قرشي وإنا أما أن نقضوا قناع ستو أما أن نقضوا أختر لواسا قرشي مركوربا لكن هذا إلهي وقدر إن أرض الصومالية وأن كفانا ما أنت إن بدنوا كمذا مقالة مقدسي تشوكتا قبل هذا ترتبه إن معلم وها وحصاب بري قاركودي معلمينهين وما أنت بوس بدنوا عن بوحين لا يجيبوا حينيا مركا قدرت معنا معنا النقضة هيت لكن حنج على إن نختار نقضة أما أن نقضة جناح ستة لبضاس هيت دوخي كوات نيو أرض الصوماليات سنة كهذا زمن كان نول وحن كل ترين لكو إن إلهي كعب صدا قف كان مركو إلهي كعب صدا أيو وحبرن كرا قلب كلبات وإن والد كوت العتك بحنايا وإنaysan khiyaanin ardayda iskuulada markay maade sheekeeya wahaystaba nolosha inay tahay maalmahan yar iskuulka joogan masaacadaha yar joogan inay lacagta waalidku ka bixinay in Ilaahay ugu cabsadaan saddex ardayda kula talin lahaa ardayga inuu yeesho hamigaas oo ah hami sare hami caali ardayga inuu yeesho oo yiraahdo fala ida qaamarta fi amri maruur fala taqna bima duna nujum hada go'aan gaarto meelan xidigaa heen ku qalcin oo arday uu hamiyo meesha ugu sareysa qof ugu sareeyo qof ugu fiican noqona arday waa inuu go'aankaas uu gaaro ilaahina uu tala u dhiibto uu gaari doono insha Allah ta'ala waxa kale arday kula talinay inay macallimiinta ixtiraamaan al-ihtiram waa shay muhiim ah inay macallimiinta ixtiraamaan macallinku waa manzilkii aabihi ama waalidku jooga inay macallimiinta ixtiraamaan maamulayaasha ixtiraamaan cid walba oo bahdi wax barashada ixtiraamaan ardayda ha noqoto waardii iskuulka ama jaamacadda waardiinay ha noqoto inay ixtiraamaan qof walba waxbarashada dhinaca ka soo gala ku lug leh ardayda waa inay ixtiraamaan ardayda waxa kale kula talin lahaa inay xirfad bartaan aqoontan maanta 12 maado ama 13 maado ee ardayda lagu gurayo waxa ka miisan arday waa inuu xirfad barto waxa saa u leeyahay waxa waaye arday markuu 12 maado namay wuxuu ku leeyahay ingiriis barana computer barana marka hore ardaygu inuu ku dadaalo inuu marka hore xirfad barto ardays u baraarujinaya iskuuladana waa inay ardaydu ama macallimiintaba waa inay ardaydu xirfad baraan ee aqoonta marka laga hadlayo waxbarasho waa saddex shay leeyahay waa skill knowledge attitude inagu waxaan ku dadaalnay knowledge kaliya waa in ardaydu labadii kale ee ka dhinay xagga dhaqankii wanaagsan in la baro xirfad uu ardaygu beritool ku shaqeysan karo in la baro arday walba waxaan oranayaa marka aan leeyahay ardayow 6 saac iskuulka joogta ku ekaanin waa inaad xirfad barato tusaale waa inaad photograph barato waa inaad cameraman inaad wax duubi kartaa barato
وإناد كمبيوتر أكونتك واحد كبرته وإناد لغات دبرته لبس شيء أو أرضي أرضي أنا كل دار مايو وأنا ربنا كسو قلنا وحواي أرضي وإنه لبس شيء برته أدوك ما تلا مرة وتكنولوجيا ده أو كمبيوتر الله استعماله اللغات لغات أما نقول اللغات العربية أما نقول اللغات الإنجليزية وإنه أما اللغات الفرنسية أرضي وإنه لغات برته كمبيوتر إنه برت أدوك ما تحلو الشقة والله بداس مرك إن شاء الله وحيد إن عن إيش ورسد لقى شقي أو كميسر لقى شقي أو فيز لقى شقي ولا جارد هنا يدنا لكن بيسك النولش هو إني ما أنتو قفكم يكون داشو حرفة وإني برتو أرض القلب كاسات وجبر رجنية وحركة سأرض سمستر فايفة وتعب دجنية أما فون فور كبحي وأن كمبيوتر سلو دار اللو دمي وحلو قرأ قولين وحركة سأرض كلمة ير أو قراءة إنجليزية أنا ترجمي كريم تاس مركب حعاب كنت أرضي عندي وحصاب برتي ومامله ومعلن له مركب أرضه وإن حرفة ده اللقاء ده جود دالان أنت سأرضي سجود ورن لها أنت سامكسوكو بين برامجكي إن أرضي نحن أورانا يمرل بإن يكون دالان أخلاق الديني إن يكون دالان دين تبرتان دتكو جارسيان الدين ولا قد تجيا إن أرضي ودين تكون فعنا ودين تبرت ومقدس أو أرضي على جربه إذن آد إن أرضي يكون بلاروجان ولب أرضي سكول كريجتا يتعالى إتبدا دين تكون فعنا أو برشة دين تيجي ويكجورن حلقي دتكي مشاهدة وبناين أو كتبة الرعان سرين عاد علم النجوت حتى دتكم ما هيان مرك أرضي إني آد وجود دالان وحبرشة دين تا أصل يعني حرفتك دالان آد وقول تلين لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي يا قنطو واسدي ليس واسدار أورتيو أختوا بركي إرماوين كله أبد مالو أقبل معلمين تاو والدكنا عدي الله معلكينا كال الله